doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo soo bilaabatay abaara koob duhurnimo ee waqtiga Geeska Afrika isla markaana soo gaartay caawa saxdii dhexe 12 habeenimo ayaa ugu dambeyn soo gabagabowday murashaxiin gaaray ilaa 40 murashax ayaa ku tartamayay xilka madaxtinimada Soomaaliya balse ugu dambeyn waxa isugu soo haray murashaxiinta madaxweyne ee kala ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana doorashada ay ku soo idlaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku guuleystay tartanka madaxtinimada ee Soomaaliya haddaba qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Istanbul ee wadankan Turkiga ayaa waxay si aad ah ula socdeen doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya iyagoona ka daawanayay warbaahinta qaranka oo si leeyahay u tabinaysay dhacdadan aadka u weyn oo gudaha dalka iyo dibadiisaba laga daawanayay qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Istanbul ee wadankan Turkiga ayaa waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan doorashadan iyo sida ay ugu faraxsan yihiin qaabka ay wax u socdeen iyagoona u mahad celiyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed magacaygu waa Cabdishaaq Axmed Maxamed waxaan joogaa Istanbul waxaan doorashada ka daawanaynay TV-ga qaranka Soomaaliya waan u hambalyeynaa madaxweynaha cusub yimid ee isbedelka wada waan u hambalyeynaa 4 sano oo madaxweyne Xasan Sheekh ahaa nin hore loo soo tijaabiyay hadda taana ma ku soo noqday xilka aad iyo aad hambalyan leenahay haddii aan nahay reer Istanbul halkan waxaan ka salaamayaa TV-ga qaranka waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markii labaad loo doortay talada dalka ugu sareysa in ilaahay xilka ku asturo waxaan kaloo u hambaleynayaa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si fiican u soo shaqeeyay intii wadanka joogay wax badan soo qabtay isagana ilaahay meel ka fiican ilaahay geeyo magacayga waa Cali Maxamed Cismaan caawa waxaan ka daawanayay doorashadeennii Istanbul caasimadda Turkiga si fiican ayay doorashada oo sharaf iyo qurux leh ay u dhacday haddaan nahay Soomaalida meesha ku daawatay waan soo dhaweynaynaa waqti fiican oo waxaan qaadanay in ay cadaalad iyo horumar ay ku dhacdo alxamdulillaah dadka asla daawanay waa la kala aragti duwanaa laakiin guud ahaan taageero ayaa ahayn kulligeen inta badan aniga Istanbul hadda joogay qurba joogta ayaan ka mid ahaa oo Mareykanka ka timid sida markaan u arko waxaan rajayn doonaa madaxweynaheena cusub oo soo socda hadda kulli waa la doortay inuu wax ka qabto dhibaatooyinka jira shaqo la'aanta hadday noqoto dadka muhaajiriinta oo qurba joogta ah magacaygu waa Raxmo Cumar Maxamed waxaa ku sugnaa dalka Turkiga khaasatan magaalada Istanbul caawa doorashada waxaa ka fiirsanay TV qaranka aad ayaan ugu faraxsanahay madaxweynaha cusub oo loo doortay waana filanaynaa marka la dooranayo aad ugu faraxsanahay guul Aleena Xasan Maxamuud soo dhawo mar kale xabiib malaayiin magacaygu waa Jamaal Daahir Cabdiraxmaan waxaan ku suganahay dalka Turkiga waxaan ka daawanaynay TV-ga qaranka Soomaaliyeed waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad ayaan u faraxsanahay soo dhawo madaxweyne aniga oo waxaan u hambalyeynaa ayaan Axmed waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu soo baxayni waran waa uu ogaa ma fahantay waxa la hambalyeeyo adeer macaan kulli koob jeer waxaan leeyahay dadka xaqabtirii baa soo noqday guul oo rajayna dadweynaha Soomaaliyeed waxa ka dabaaldegaa Istanbul ku noolahay alxamdulillah waxa aaminsanahay xaqabtirii Soomaaliya inuu dib u soo laabtay Umar Caaqil warbaahinta qaranka magaalada Istanbul wadanka Turkiga